assalaamu calaykum. jalaaluddiin arruumiy magiciisa dhabtaana uu yahay moxamed binu moxamed binu xusein bahaa'iddiin. waxa uu ku dhashay gobolka balkh ee ka tirsan khuraasaan, iminkana loo garan og yahay afghanistaan, sannadku markuu ahaa 604 hijriga, kuna beegan 1207 miilaadiga. magaalada balkh waxa ay ahayd magaaladii cilmiga iyo culimmada, waxa aanay ahayd mid ka mida xarumihii ugu muhiimsanaa ee muslimiinta. waxa aanu ku soo dhex barbaaray qoys aqoonta iyo garashadu ay biyo dhigtay. aabbihii waxa uu ahaa maxamed bahaa'uddiin oo lagu naanaysi jiray suldaanulculamaa, halkaas ayaa aanu ka dhaxlay aqoonta. waxa aanu ahaa gabayahan iyo fiqiyahan haysta madhabka xanafiyada. waxa uu geeriyooday allaha u naxariistee 672 hijriga oo ku aadan 1273 miilaadiga. intaasina waa sooyaalkiisii oo kooban, balse haddaynu galno mucda barnaamijkeenna oo ah odhaahyadii iyo xikmadihii cajiibka ahaa ee jalaaluddiin arruumiy, midna ku darso oo caalimkan waxaa lagu naanaysi jiray sayidulmucaashiqiin ama inta wax jecel sayidkoodii. haddii aad maqli jirtay sheekha jacaylka, waa kan sheekha jacaylka dhabta ahi. ku soo dhowaada haddaba xikmadihiisii iyo odhaahyadii cajiibka ahaa ee laga hayey. waxa uu ina leeyahay sagootintu waxa ay ku dhacdaa oo keliyata qofka wax ku jeclaada indhihiisa, balse ka wax ku jeclaada qalbigiisa iyo naftiisa weligii kuma dhacdo. halkaana waxa uu nafinayaa oo uu diidayaa inaanu jirin waxa la yidhaahdo jacaylka aragtida koowaad. waxa uu ina leeyahay jacaylka ujeeddadiisa ugu weyne ay tahay quruxda jidhka, kaasi ma aha jacayl dhaba. waxa uu ina leeyahay dabku qiiq ma laha marka uu olol noqdo. waxa uu ina leeyahay hawshaadu ma aha inaad daba oroddo jacaylka, balse waa inaad raadiso o aad hesho caqabadaha aad labadiinna dhex dhigtay. waxa uu ina leeyahay waxaad arki doontaa in qofka kariimka ah ee deeqsiga ahi uu ku nool yahay si cadaalada, halka qofka anaaniga ah ama qofka dantiisa ka horumariya danta guud uu ku nool yahay si cadaalad darro ah. waxa uu leeyahay qalbigu waa nuxurka, odhaahduna waa soo bandhigid. odhaahdu way soo raagtaa, balse qalbigu waa ujeeddada. waxa uu ina leeyahay nafta ammaanta badani waxa isu beddeshaa fircoon, oo uu uga jeedo nafta mar walba oo la ammaano ama iscajabiso waxa maragma doona inay qabyo isla weynigelayso. taasina waa tii fircoon u horseeday inuu sheegto ilaahnimo. waxa uu ina leeyahay keebay addeeciddiisu ruurnimo badan tahay, mid addeecay boqorkiisa isaga oo aan arag, iyo mid addeecay isaga oo arkay. dabcan waa sidii qof ilaahay u addeecay oo rumeeyey, qaatay oo raacay manhajkii uu soo dejiyey, ku camal falay oo si dhaba u dhugtay aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nebiga, rumeeyey inay jirto xisaab aakhiro, rumeeyey inay jiraan janno iyo naar, iyada oo ay jirto inaanu arag ilaaha uu sidaasoo dhan u rumeeyey. iyo sidii qof intaaba rumeeyey laakiin rumeeyey markii ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ee ay xaqiiqadu biyo kama dhibcaan noqotay. labadaas keeba ay rumayntiisu runnimo badan tahay, dabcan adiguba waad aragtaaye. waxa uu ina leeyahay waxaa laga yaabaa in dhaguhu ay yihiin labada salladood ee kaa hortaagan inaad wax maqasho. halkan waxaan u fahmay in dhaguhu ay yihiin waxa aad ku maqli karto xaq iyo baadil labadaba, laakiin haddii aad ku qaadato baadil oo aad isdhegamariso xaqiiqada, dhagahaagu waxay kaa hor istaagayaan inaad wax maqasho. dhagihii alla waansho ayuunbaa waansane. waxa uu ina leeyahay indhahayagu kuma arkaan, laakiin naga raalli noqo, indhahayagu waxay arkaan oo keliyata muuqaalka sare, balse adiga oo ah xaqiiqada kuma arkaan. waxa uu ina leeyahay qofka wax jecel ma yaqaano quusta, wadnaha garaactamayaana wax walba waa ka suurtagal. waxa uu ina leeyahay waxaan idhi waxaan u baahanahay xiriirkaaga, markaas ayaa igu tidhi qiimaha isku xidhku wax kale maaha ee waa naftaada. markaas ayaa uu qalbigaygu ku qayliyey ka faa'id oo ka macaash iibkaaga markaas. xikmaddan uu inoo soo bandhigay jalaaluddiin waxa ku jirta faham xeel dheer. haddii aynu isku dayno inaynu soo dhoweynana, waxay noqonaysaa inuu u soo bandhigtay xidhiidh jacayl, markaas ayaa ay ku tidhi wax kale kaama xigaan oo aan ahayn inaad naftaada ii hibayso. markaas ayaa uu ku yidhi waad heshay wixii aad doontay. waxa uu ina leeyahay
ma jiro xal aan ka ahayn inaad Ilaahay addoon u noqoto. Waxa uu ina leeyahay, waxaa laga yaabaa in arrimaha fudfudud ay yihiin kuwa ugu saamaynta badan, laakiin cid waliba ma dhaadana. Waxa uu ina leeyahay, isfahamku ma aha in afaf la isku fahmo, ee waa dareen. Waxa uu ina leeyahay, waxa aad raadinaysaa waa ay ku raadinayaan. Yacni wixii aad in badan aad raad gurto, ee aanad ka daalin inaad raadiso mar ayuunbaad hanataa. Waxa uu ina leeyahay, waxaa kaa buuxa maqaar, dhiig, lafo, caqli iyo ruux. Ma jirto meel rajo la'aan ahi, sidoo kale ma jiro jiritaan kula mid ahi. Waxa uu ina leeyahay, quruxdu waxa ay soo jiidataa qurux. Haddaad doonaysana akhri aayadda 26aad ee suuratu Nuur. waatayibaatu liltayibiin waatayibuuna liltayibaat. Waxa uu ina leeyahay, ilayska isha ka baxayaa wax kale ma aha, ee waa raadkii iftiinka qalbiga. Ilayska qalbiga ka baxaya miyaa? Isagu waa nuur xagga Rabbi ka ahaaday. Waxa uu ina leeyahay, Ilaahay waxa uu ina hordhigay jaranjaro ay tahay inaynu tallaabo tallaabo u fuulno. Waxa aad leedahay 2 cagood ee maxaad isaga dhigaysaa qof curyaana? Waxa uu ina leeyahay, waxaad imika awooddo ha u raadin firaaqo. Qodobkaasna in badan bayn barnaamijyo hore kaga hadalnay. Waxa uu ina leeyahay, walaalkayow, waxa aad tahay uun fikir, waxa kaa soo hadhayna wax kale maaha ee waa harag iyo lafo. Waxa uu ina leeyahay, shalay waxaan ahaa mid caqli badan, waxaan rabay inaan caalamka oo dhan beddelo, balse maanta waxaan ahay mid xikmad badan, oo waxa aan beddelayaa naftayda. Waxa uu ina leeyahay, u muuqo sida aad tahay, oo noqo sida aad u muuqato. Yacni ha noqonin qof marka uu dadka la joogana habdhaqan gooni ah leh, marka uu naftiisa la keliyoobana habdhaqan gooni ah leh, ee mar walba waxaad ahaataa mid toosan. Waxa uu ina leeyahay, ha ka fogaan inaad tijaabiso oo aad dhex gasho arrimaha adag, maxaa yeelay waa macallin wanaagsane. Waxa uu ina leeyahay, xanuunada aad dareemaysa wax kale ma aha, oo aan ka ahayn rasuul laguu soo diray, ee iyaga dhegayso. Waxa uu ina leeyahay, ka tag gadaashaada dhaxal xasuus mudan. Waa halka ay Soomaaliduna ka dhihi jirtay, waari maysida war ha kaa hadho. Waxa uu ina leeyahay, aalaaba raac qalbigaaga, waxa uu ku geyn doonaa halkii aad u baahato aaditaankooda. Waxa uu ina leeyahay, aamusnaan u fadhiiso goob in muddo ah, shay walbana waxa uu muuqan doonaa mid suurtagal ah. Waxa uu ina leeyahay, haddii aad raadinayso luul, waa inaad quustaa badda hoosteeda, oo xeebta wax ka jira ma laha xunba mooyaane. Intaasna Maxamed binu Idriis Ashaafici markii uu gabay ku tilmaamay waa kii lahaa, waman raama alculaa min gayri kaddin adaaca alcumra fii dalabi almuxaali taruumu alciza thuma tanaamu leylan yaguusu albaxra man dalaba alla'aali. Qofkii raadiya meel sare dhib la'aan, waxa uu cumrigiisii ku dayacay dhalanteed. Waxa aad doonaysaa cise iyo sharaf, kadibna habeenkii baad iska seexanaysaa. Waar badda ayaa uu quusaa qofkii doonaya luul. Intaas ayaa uu Imaamu Shaaficina yidhi. Waxa uu ina leeyahay, shareecada aan qofka waxba siinini ma aha mid dhab ah. Waxa uu ina leeyahay, waxa aad ku dhalatay baalal, ee maxaad u door biday inaad nolosha ku dhex guurguurato. Dabcan markaan dhalanna maynaan lahayn baalal, ee waa hadal dhiirigelina. Yacni waxa uu ka wadaa oo uu rabaa inuu ina xasuusiyo aayaddii uu Rabbi yidhi, bani aadamka waan karaameeyey. Sidaa awgeed inuu qofku nolosha hoos isku dhigo ma aha, maadaama uu Rabbi sharaf iyo karaamo u yeelay. Waxa uu ina leeyahay, kor u qaad erayadaada, laakiin maya codkaaga. Waa roobka waxa naqaya ubaxa soo saara ee maaha onkadka. Odhaahdani waa mid aniga macno weyn ii samaynaysa. Akhi, mar walba ku dadaal in hadalka aad leedahay uu yahay mid mug iyo miisaanba leh, laakiin ha ku dadaalin inaad mar walba codkaaga la maqlo. Markii aad qof arrin aad ka wada doodaysaan, ama arrin dhexdiinna ku murugtay aad doonaysaan inaad xal u heshaan, qofka aad doodaysaan dhegayso, kadibna dheh hadal aad ka fikirtay, laakiin ha isku dayin inaad buuq iyo qasab aad wax ku marsiiso. Waxa uu ina leeyahay, qalbigaaga waxaa ku jira shamac diyaar u ah in la shido, naftaadana waxaa ka bannaan meel diyaar u ah in la buuxiyo. Waana dareentaa middaas, war miyaana dareemin? Waayahay, middaas uu inoo sheegay Jalaaludiin Arruumi. Keliyaata waxaad dareemi kartaa marka aad naftaada la khalwooto, aad isweydiiso waxa kuu qabsan iyo waxa kaa qabiya. Isweydii wixii aad ku shidi lahayd shamaca diyaarka waa shidniinka, iyo wixii aad ku buuxin lahayd meesha naftaada ka mida ee tabaysa dhinaanshiyaha. Waxa uu ina leeyahay,
noloshaada dab saar, kadibna fiiri kuwa dabkaaga huriya. Midaasina waa sir uu inoo sheegay Jalaaludiin Arruumi oo aad ku kala ogaanayso nacabkaaga iyo nasabkaaga. Halkaa inoogu jooga barnaamijkeenna maantu, intaana Allah inagu anfaco. Wassalaamu calaykum.